بسم الله الرحمن الرحيم. habeen wanaagsan ciid wanaagsan Soomaaliyeennii sharafka lahayd waxay nooga tagtay habeenkan caawa ah iyo habeenkii ka horeeyay iyo ciid iyo ummad mid ah oo isku qalbiyo isku niyada intaasaynu dhaxalay. waxaan anigu joogay aan ogaayo la soo kulmay waqtigii gobollada waqooyi la baadi goobayay Soomaalidu dab meel bay ka bilaabmaa iftiinku meel buu ka bilaabmaa markii SYL bilaabatay dadku telefoonna ma haysan telegaraamo la isu diro badanay ma jirin xiriir caynkaasi ma jirin haddana waa la wada xiriirayo wixii maanta xamar ka dhaca badda casba markaaba laga ogaanaya sidaa awgeed Soomaalidii waqooyiga waxaan ogaa marka meel la isugu yimaado dadku dad imiga ka qiiro badan dadkan maanta jooga bay ahaayeen dadku dadkan la mid ma ahayn maanta waxay naga lumay waxa weeye qiiradii wadaninimo iyo ummadnimo dhibaato intii iyaga gaadhay in ka yar maynaan marin dhibaato ka weyn baynu maray aniga sidaan imiga arkayo laakiin qalbi saafiya bay kaga gudbeen midnimo iyo inay xorriyad helaan keliya oo wax kale la socon bay ka shaqaynayeen waa tii la yidhi 10 sano koonfur baa la tababarayaa oo dawladnimo loo tababarayaa waqooyi cidna ma tababarin way diideen waxay yidhaaheen markii gobonnimada uu qaatay waqooyi koonfur ay qaadanaysay waqtigay ku beegnayd annagana halana siiyo waliba horreysiiyo waxna ayaan lana tababarin bay yidhaaheen sidii bay wax ku heleen waad garanaysiin calankan markii horreysay ee Hargeysa laga taagay waa aad baa loogu wanqalay suugaanta maalintaa la sii daayay wanqal kasta taasaa ugu weynayd gabayada iyo heesaha taariikhda ay maanta xusto ee faraha badan leh habeenkiibaa calanka laga kor tiriyey gabayadii baxay waad garanaysiin rag badan oo suugaanyahanaa tiriyey cabdillaahi suldaan timcadde allah u naxariistee wuxuu ku qaatay kaana siibka nasaar calankii kale ee gaalkaba meesha saaran iyuu lahaa kaana deji ka nasaar kelmaddaasaa nin waliba waayay oo lagu kala baxay laakiin suugaanta lama kala hoysayn anigu waxaan garanayaa Soomaalidu gobol walba ay ka imanaysay xaflad kasta oo la isugu yimaado hadalka lagu qabto gabayaa u badnaa wada shaacir bay dadku ahaayeen aan hadalka maaragtay kala goyn waxay ahaayeen dad baadi iyo magaalooyin badanay maba jirin oo sidan aad u xoogani ma jirin dad u hanuunsan inay calan helaan oo qaran helaan oo dawlad noqdaan dawladna inta garanaysa wadada loo maro waabay iska yaray laakiin isticmaalku aan naga tagaba iyaga ka dhabahay waxa jiray waqtigii Cabdullaahi Ciise oo tagay UN-ka cishada gabayadii waqooyiga laga tirinayay heesii laga tirinayay anagu maanaan garanayn marka Cabdullaahi Ciise ku yahay qolamu yahayna maanaan garanayn gobol ku yahay maanaan garanayn laakiin waxaanu garanaynaa hadalladii la qaadayay xafidnay caddaanka hortiisa ninka caabanaya Cabdullaahi Ciise Allah caawiye waxa lagu beeray saacaddii oo UN-ka ka hor hadlayay marka yaani Soomaalidii markaasi qolo looma eegayn lama garanayn qolo in la xoroobo kaliya ahayd waqooyi waa la isdaba marayay bariga iyo galbeedka wufuud baa socotay miisaaniyad ma nan lahayn maanta miisaaniyad baa laga bilaabaa miisaaniyad misaynu leenahay wasaaradda hiblaayo imisay shaqo geysay inagoo god ku jiraynu ka hadlaynaa dadku miisaaniyad ma lahayn haddana intaa wuu socday wuu isdaba marayay gogoshu way fidsanayd meel walba yacni maalin qura oo waqooyi corner to corner
intaasoo boqol oo gogolood baa la fadhiisanayey ciddii loo tago unbaa kharashka qabtay cid sahay qaadanaysay ama miisaaneed ka fakaraysay ama kharash jeebkeeda ma ku wada taalla lahaa ma jirin gumaysiga meeshaan ka saarno keliya lagu ballamay maantana ballankeennu hadduu sidii noqon waayo oo jawigii berigaa aan aragnay lala soo noqon waayo oo Soomaaliya ay ku ballami weydo inay qarankii dhisato oo ay wada hadal aan cid u dhaxayn wixii yaree dhexdooda ay ku xallisan weydo oo madaxda maanta joogta ee tiri annagu mid baanu doonaynaa qolo ma lihin qolona ma doonayno la raaci waayo anu meel ku dambaynaysa ma garanayo meel xun bay tagaysaa marka Soomaaliyeey aynu ku guntanno inaan xorowno inaan dib u xorowno oon waxayna la soo noqonno wixii kalaba inaga dhaafa wada hadalkeena iyo wixii inaga dhaxeeya yaan laga dhigin qolo iyo waxaan qolo waatayna dishay qolo hortaan ka xorowno gaalo waynu iska kaxaynaa qolo baynu iska kaxayn kari weyne qolo waatayna dishay qolaha laga xoroobo Soomaali anigu haddaan qolo ka baxo maxay qolo ay tartay haddaan taariikhda dib ugu noqdo waxay qolo ay tartay ma jiro aniga cashuurta ninka Soomaaliga laga qaadayay wax badan ma barana inta yareen bartay kharash badan baan ka qabaa nin walibana uu daymaysan yahay reerninku wax u taray oo qoladiinni baad raacday waad joogtaa maanta maxaad ka dheeftay maxaad ka haysaa halkay ku geysay halkaysa ku wadaysaa qolonimadu halkay ku geynaysaa bal ka fakar qolonimo halkay ku geynaysaa anu qoladayada haddaan ka baxo maxaan u waayayaa oon Soomaali haysto maxaan u waayayaa cilladda la iska iloobo la iska saaro hadalkana Soomaali meesha geedka markay ku wada hadlayso waxbay isu sheegtaa waxbay iskuma dhaafto si fiican bay u dacwadaa oo garami taqaan way wada hadashaa waana heshiisaa isma diido laakiin hadalka laga turay internetkii waxba badan nooma tarin annaga iyo facebooka waxa la dhigaa qolo iyo cayuun kuwa dadkun caayaa soo baxay dhaga u dhigina Soomaaliya aan ku guntano qarannimadeena gun baynu noqonnay gumaysiga aan ka baxno nimanka Soomaali baan nahay yiri aan raacno waxa naga xumaanayaana ma jiro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh